waxaan wanaagsan asxaabteena qaaliga oo mar kale barnaamijkeenii Excelka waxaan idin tusaa haddii la yidhaahdo qaabka loo shaqeeyo marka tusaale aad ka shaqeynaysa halkaa shan shaqo adigoo ka shaqeynaya tusaale shan shaqaad ka shaqeynaysa oo halkaa noo yaala tusaale horta noo ka dhigana borarkan yar qurxisan markaas marka koowaad waxaan shantan shaqo iyo saacadahan ayaad gashaa markaas saacadan waa saacadii aad gelisay start timeka ahaa saacadahan waa waqtigii durationka aad shaqeynaysay markaas imisa saacadood yaan shaqeeyaa imisaanse ka baxaya imisadaan ka baxayaa markaas leedahay maadaama intaan shaqaysid waqtigan aad soo gashid imisadaad ka baxaysaa tusaale uma baahnid inaad calculation iyo wax soo qaadatid ayar waxaad kaga shaqeynaysaa excelka computerka kala furaysaa operationka qofka ka shaqeynaya tusaale hadduu 60 iyo 50 galayo 4 saacadood ka shaqeynayo imisaduu ka baxayaa bay ka dhigantay si kale haddii loo dhigo toddobada hadduu galo qofka HR ka u shaqeeyo 7 subaxnimo marka hadduu galayo 6 saacadood shaqeynayo imisaduu ka bixi karaa bay ka dhigan tahay markaas sida qaabkii loo shaqeynayaan halkan caawa idinku tusa haddii la yidhaahdo markaas la socod wanaagsan marka koowaad equal to ayaan leenahay start time taan click leenahay bilaas ayaan leenahay oonu geynaynaa shiftiga iyo lase bilaas aan isu taabanaynaa time ayaan qoraynaa time markaan qoro kadib ka labaad ee maxaa la dhahdaa saacadda durationkaad shaqeynaysa aan click leenahay kooma ayaan leenahay eber ayaan leenahay kooma ayaan leenahay haddana eber ayaan leenahay bracketka ayaan saas u xidhaynaa bracketka markaan xidhno enter ayaan leenahay enter markaan dhahno kadib wuxuu noo shaqeynayaa saacaddii aanu ka bixilayn noo shaqeyn 6:00 maqribnimo haddii la galayo 4 saacadood aad shaqeynaysid saacadaad ka baxaysid waxay noqonaysaa bay ka dhigan tahay 10:50 markay saacadu tahay kuwa kale markaad shaqeynaysid sidii caadadeed halkaa geeskaad imanaysaa kadib calaamadda markay tallaabo isku bedesho kadib iyaad double click leedahay saasuu hoos kuugu shaqeynaya dhammaantood saasuu ku wada shaqeynaya bay ka dhigan tahay si kale haddii loo iminka jaarka hadduu 7 barhka subaxnimo galayay uu 6 saac shaqeynayay 1 barhka duhurnimo ayuu ka baxaya bay ka dhigan tahay financiga qofka ka shaqeeya tusaale hadduu 6 iyo 25 daqiiqadood uu galayay 8 saacadood ma uu shaqeynayay 2 iyo 25 daqiiqadood marka la marayo duhurka ayuu ka baxaya bay ka dhigan tahay halkan kale hadduu shaqaalaha nadaafadda ay galayso 8 iyo rubuc 7 saacadoodna ay shaqeynayaan 3 iyo rubuc galabnimo ay ka baxayaan bay ka dhigan tahay sidaasoo kale supply chainka haddii 9 iyo 30 iyo 7 ay galayaan subaxnimo 3 saacadood keliya ay shaqeynayaan 2 iyo 10 iyo 37 daqiiqadood ayay shaqeynayaan bay ka dhigan tahay markaas qaabkaasoo loo shaqeeyaa markaad xisaabsanaysid saacadda ku dhiman saacadaad bilowday iyo waqtiga aad shaqeynaysa saacadaada si aad u ogaatid sidaana loo shaqeeyaa waxaan rajeynaynaa aad u fahamteen si aad barnaamijka qaybihiisa kale ula socotaan barnaamijkan follow soo dhaha youtube-ka bioga saaran subscribe ayaan lagala bakhaylin aad iyo aad baad mahadsantihiin waqti aad joogtaan oo wanaagsan ayaan idiin rajeynaya dhammaantiin